dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diiriye oo qorshihiisu ahaa ama ajandihiisu ahaa waxaan kuli kormeer kusoo maray gobolkan Gabiley khaasatan degmada Wajaale iyo xarunta degmada Gabiley oo iminkaanu ka dhagax dhignay dugsi waxaan kuli farsamo gacmeed haddii dugsi kale la furayo waxaas waxaan dareemayaa inay dayado hawl weyn iyadoo ay tahay haddana tani si gaar ah macnaha ay samaynayso ay farxad gaar ah ugu leedahay maayarada waxaan caawa halkan fariin uga dirayaa runtii waxaanu ka soo noqonnay Wajaale mudane maayar maxamed amiin oo xaaladii ka taagnayd runtii waxaan ku kalsoonahay inaanu si qaran arrintaa Wajaale u eegi doono insha Allah kana mid noqon doonto maadaama xukun ka soo baxay maxkamadda degmada Gabiley ku taala inaad doorkaaga qaadan doonto horumarka waxbarashada kaalintaad ku leedahay baan kugu bogaadinayaa waxaan maayarada kalena leeyahay maxamed amiin oo kale runtii iyo ninka la yiraahdo waxaan ku waxbarashada maayar kale aad ka wada shaqeeya cabdishakuur cidin oo kale inaan kaan abtiga u ahay berbera maayarka anfaane waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta halkan aynu dhagax dhigno dugsi farsamo gacmeed oo yeesho gobolka Gabiley waxaynu ognahay baahida loo qabo farsamo dugsiyadeenna sare waa badan yihiin kuweena hoose dhexe waa badan yihiin dugsiyadii farsamada oo degdeg dhalinteenu ugu heli lahayd shaqo ayaa inaga maqan inta badan marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo maayarka magaalada Gabiley oo iskuulkan oo awal loogu talagalay dugsi sare waa hore 10 sano dhisnaa fakiray in laga faa'iideysto oo uu ku daro qaybtii farsamada marka hore farxad weyn bay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galo dugsigii ugu horeeyay taariikhdana galiyay ahaa dugsiga farsamada gacanta oo laga aasaasi doono ama laga aasaasay hadda gobolka Gabiley waxa ahaan wasaaradda waxbarashadu waxay ku dadaalaysaa ama dadaal weyn ugu jirtaa sidii ay u balaadhin lahayd dugsiyada farsamada gacanta dalka oo dhan maaha kan kii ugu horeeyay laakiin dugsiyo kale way ka jiraan dalka aad baan u soo dhaweynayaa dugsiga farsamada gacanta insha Allah waxaan rajayn doonaa inuu dalka iyo dadka wax u tari doono deegaanka dadka deegaanka aad bay ugu baahan yihiin dugsiyada farsamada gacanta marka loo eego resource-ka ay haystaan waa dul beeraley waa xoolo dhaqato waxaan rajaynayaa wixii iyaga anfacayana in lagu bari doono insha Allah dadka iyo dhalinyarta goobta joogtana ay hadhow ka faa'iideysan doonaan oo noqon doonaan waxay ku shaqo tagaan oo ay wax uga anfacaan dalkooda iyo dadkooda waxaan ku faraxsanahay si gaar ah anigu ugu faraxsanahay inaan arko maanta degmadii Gabiley oo yeelanaysa dugsi farsamo gacmeed aad iyo aadna u soo dhaweynaynaa wixii aanu khibrad iyo maxaan ku dhahay farsamo bahaynana waan ku kordhinaynaa wixii cilmiga baan ku kordhinaynaa macallimiin iyo maxaan ku dhahay curriculum iyo wax walba waanu idin garab taaganahay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum sacaadatu wasiir maanta waxa noo sharafa inaad halkan adiga iyo waftiga hogaaminayso agaasimihii guudna kula socdo agaasimihii tifidku kula socdo aad goobjoog ka ahaataan ama aad noo dhagax dhigtaanba iskuulkii ugu horeeyay ee farsamo gacmeed ee laga hirgeliyo gobolka Gabiley khaasatan caasimadda gobolka sacaadatu wasiir golaha deegaanka ee degmada Gabiley waxay ka mid yihiin dawladaha hoose dalka ee waxbarashada sida dhow loo shaqeeya hadday tahay tu hoose hadday tahay tu dhexe hadday tahay tu sare iyo jaamacadba mandate-ka golayaasha deegaanka marka la eego waxa waajibka koobaad naga saaray dugsiyada hoose dhexe hase yeeshee inagoo eegana duruufaha dalkeena waxa weeye qayb walba door baan ku leenahay annagoo hadda wasiir ka fikirana duruufaha jira ee dhalinyarteena haysta shaqo la'aantu kow ka tahay xirfadihii oo aynu aad iyo aad ugu baahannahay oo aynu dhaqaale ahaan korano hase yeeshee aynaan aqoonteedii lahayn aan ka fikirno kobcinta dhaqaalaha ayaa waxaanu garanay in iskuul farsamo gacmeed la aasaaso annagoo niyadda ku hayna inay wasaarad ahaan qorshaha idinku jirto haddana inaan idinka idin sugine annagu taayirka sii dhaqaajino idinkuna aad nala dhaqaajisaan iskuulkan aynu hadda joogno wasaaradda waxbarashada iyo dawladda hoose Gabiley baa dhulka iyo dhismahaba iska kaashaday wuxuu ahaa qorshuhu in secondary labaad oo public uu noqdo kadibna waxaanu isnidhi iskuulkaasi u bedela dugsigii farsamada gacanta 6 fasal baa ku yaala 6 fasal waa la isku furi doonaa waxa loo bedeli doonaa 6 hool 3 hool sidoo kale waxaynu maanta dhagax dhigno inuu dhisnaa 3 workshops midkiiba noqon doona 20 dharara iyo 8 balaa iyo offisyadii iskuulku yeelan lahaa iyo suuliyadoodii maanta kol hadaynu dhagax dhignay shaqadiisina way bilaabmaysaa insha Allah taala wasiir waxaan jecelahay inay isugu nimaadno si dhaqso ah isagoo furma
oo shaqadiina bilaabma. waxaan halkan u joognaa dhagax dhigno dugsigii farsamada gacanta ee Gabiley ee gobolka Gabiley. waxaa jira dugsiyo farsamada gacanta oo ka jira gobolada kala duwan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland qaar kale oo dadku leeyihiin oo barafadna way jiraan midama imika dawladdu dhismihiisa ka qayb qaadato hal door leedahay sanad dhisi doono oo socdo dhamaystirba ku dhow sanadkan inta miisaaniyadda ugu jirta marka la bixiyo aan rajeynaa inuu shaqo galo ayaa isna jira qorshaha dawladdu waxa weeyaan ama wasaaraddu in dhammaan gobolada waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ama gobol kastaba 14 gobol inay yeeshaan dugsi farsamo gacmeed ujeedadu waxay tahay markaa dadku inay bartaan xirfadda qofku markuu xirfadda barto wuxuu dee ka shaqeynaya noloshiisiiba ayuu daboolaya marka Gabiley maamulkeeda aad iyo aad baan ugu bogaadinaya Maxamed Amiin iyo barasaabkaba waxbarashada aad iyo aad bay u sii uga shaqeeyaan waxyaalo fara badan inta imika noo sheegay ka badan bay ka qabtaan dugsigana runtii wuxuu markhaati u yahay in gobolkan xaggii horumarkii waxbarashada u jeestay aad iyo aad baan ugu amaanayaa aniguna wasaaradda waanu ka qayb qaadan doonaa aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta waxaa farxad noo ah wasiir inaad nagala soo qayb gasho adigoo kormeerna ku soo maray degmada Wajaale halkana maanta aanu ka dhagax dhigayno xaruntii gobolka Gabiley u baahnaa ee dugsiga farsamada gacanta ahaa run ahaantii bahda waxbarashada runtii gobolku aad baan ula shaqeynaa waa gobolka kaliya runtii deerarka iskuulada iskaa wax u qabso horta ku dhameystiray kulli taariikhda annaga ugu horeynay mar walbana waxaad arkaysaa si aan ugu soo jeedno dhinaca waxbarashada farsamada gacantu qofka xirfadda bartaa naftiisana wuu horumarinayaa waalidkiisana wuu horumarinayaa shaqo la'aantii iyo baahidii qofka haysana wuu daboolayaa shaqadan farsamada gacantu waxa weeyaan waa nolol adigoo keliyana kugu filaanaysa qoyskaaga iyo qarankaaga ku filaanaya marka xirfadaasi runtii dadkeenu baahi badan bay u qabaan waxaan jecelahay inaynu taa horumarino marka mudane wasiir aad iyo aad baan kugu bogaadinayaa sida sharafta iyo qiimaha leh runtii aad waqtigan kulul aad noogu timid oo nagala qayb qaadanayso dugsiga farsamada gacanta ee Gabiley baynu dhagax dhiganaa xafladan waa sidii Cabdilaahi sheegay xafladaha kale way iga muhiimsantay oo laba wax bay iga muhiimsantahay magaca toorno horta berida waxa la bixiyay farsamada gacanta markii dambe waan ka baxay laakiin aano elementary school la bixiyo shacabka wiilasha dhigta markii dambe waa la qaato farsamadii gacanta ama ka baxay waxaanu leeskaraynay inta meelood ee Soomaaliland la degan yahay 23 degmo doorasho marka laga reebo caasimadooda 1300 iyo 180 meelood 530 baan iskuul lahayn marka xooga waa inaynu saarno dadka waxay noo soo saarayay ee aynu dadka ku nahay inaynu wax barnade farsamada gacanta waliba aynu barno iskuulku waa inaanu noloshaydiin wax ku biiriyo mooyaan wax iga dhimin waxaan halkan aan amaan hadba uga soo jeedinayaa maayarada markay timaado maayarada la yidhi waxbarashada primary ee ka mas'uula labada maayare midna aan oo risaqoon labadooda waan u sheegay Maxamed Amiin imika uu sheegaya Cabdishukuur cidna waxa qofka waxa wanaagsan sameeya wadu ku shuucaysa labadooda midna aan oo aqoon wallahi beelkii sheegmay ayaa niyadeyda ka shaqala maxaan u jeclaaday ma waxay aniga ay qabteen ba degmadoodii loo doortay waxa u qabteen meel walba oo ka hirgalina cid walba kalena waxay leeyahay war madaxda labada maayar iyo cid kale wax qabanaysa aynu ku dayno. Assalaamu calaykum.